kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiin baa meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada oo haay Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir waxaan idiin soo gudbinaynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee hore Xalimo Ismaaciil oo ku magac dheer Xalimo Yarey waxay marti noogu tahay barnaamijka Haldoor ee oo haay Somali TV Xalimo ku soo dhawow oo haay Somali TV iyo barnaamijka waa dhawahay waana mahadsantihiin waxaanu wareysigeenan inta uu socdo aanu diiradda saari doonaa arrimaha doorashooyinka su'aasha ugu horeysa ayaa ah Soomaaliya xilligan la joogo doorasho caynkee ah ayay tahay inay ka dhacdo Soomaaliya horta waa isu soo diyaarisay doorasho inay ka dhacdo waxaa jiray sharci doorasho waxaa jiray sharci xisbi waxaa jiray guddi doorasho waxaa jiray sharci guddiga uu hawsha ku maamulayo wuxuu soo shaqeynayay muddo 7 sano iyo bar oo tababaro iyo aqoon kororsi iyo habka doorashada loo qabto iyo diyaarinta qalabka doorashadii diyaarin xarun weyn oo guddiga doorashada uu ku diyaariyay doorashooyinkeeda shaqaale la tababaray oo badan oo lagu kalsoonaan karay database iyo documentation waxaas oo dhan lahaa ayadoo asaas tahana doorasho ma ay qabanin sababtay u qadamaninna waxay ahayd khilaaf dadka siyaasadda hunguriyeynaya oo raba inay is-sharaxaan oo ku heshiin waayay habkii doorashada ee u dhici lahayd waxaa ku heshiin waayay madaxdii rabtay inay doorashada gasho oo markaas bannaanka ka joogta dawladda oo mucaaradka ahaa dawladda dhexdeeda nafteeda markaasayto dareemay in aan doorashadii diyaar loo ahayn cid ugu sii xooga badneed oo doorashada runtii aan diyaarka u ahayn ay ahaayeen madaxda dawlad goboleedyada ayadoo marka saas doorasho 7 sano la soo diyaarinayay suuroob weyse oo la isku diiday ilama aha wax 2 sano ka yar in lagu qaban karo waa usoo noqonaynaa arrimaha la xiriira waqtiga ay haystaan guddiga dhawaan la magacaabay ee ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka adiga hore waxaad usoo noqotay gudoomiyaha guddigii doorashooyinka ee dawladda Soomaaliya marka aad khibradaada adeegsato qaabka ay dawladda Soomaaliya haatan wax u wado marka loo eego qabashada doorasho sida ay kula muuqataa walaa horta hore waxaa la yaab leh shuruuc degsan oo baarlamaan uu soo ansixiyay oo loogu talagalay in doorasho lagu qabto inta habeen la baabi'iyo in la raadiyo shuruuc kale taas waxay ku tusinaysaa in oo imaan karo gaab weyn oo aan suuro gelinaynin in doorasho la qabto wax diyaar ah markii laga tagay ee haddana la raadinayo wax aan diyaar ahayn muddaday qaadan karto waa garan kartaa waxay ahayd wixii yaalay in la qurxiyo haddii wax ka dhiman yihiin dawladdii madaxweyne xasan sheekh ee hore inta badan shuruucdaasayto soo diyaarisay ka adigaba waa qiyaasi kartaa wax diyaar ahaa la burburiyay waxbaa hadda la raadinaa gud doorashaa la raadinaa shuruuca la raadinaya waqtigeeday marka qaadanaysaa waad mahadsan tahay waxaan wada ognahay in Soomaaliya aysan adkayn amaba aysan jirin xuduud adag oo Soomaaliya ay leedahay dhinac walbaba dawladda Soomaaliyana waxa ay sheegtay inay qaban doonto doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya suuragal ma tahay xilligan la joogo in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah xuduud lahayn maxaa ka wadaa xuduudaha Soomaaliya waxaysan lahayn ciidamo ilaaliya security-gooda ama ammaankooda dalku dhinaca bariga iyo dhinaca badda iyo dhinaca cirkaba qofkii doona ayaa geli kara cidii doonta ayaa hadii Soomaaliya la dhaho doorasho laga qabanaya qof iyo cod xuduudaha dalalka dariska la Soomaaliya ay ka talaabi karaan dadka jinsi ahaan Soomaaliga ah oo waxay ka codayn karaan Soomaaliya marka su'aasheedu waxa weeyaan Soomaaliya suuragal ma tahay haatan xilligan la joogo in ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod horta xuduudaha iyo hadaa ka hadashid qofka aan Soomaaliga ahayn iyo
waa inuu jiraa sharci sheegaya yaa doorashada geli kara. sharcigaasaana caddayn doona doorashada sida loo galayo, inkastoo aan hadda si cad aanan uga arkin sharciga doorashada. laakiin yaa Soomaali ah shuruuc bay leedahay, yaa doorasho geli karana shuruuc ay leedahay. guddigii yimaadana wixii ka dhiman shuruucdan hadda jira waxay ku soo saari karaan xeer hoosaad. laakiin su-aasha horaa waxay ahayd maxaa keenay baahida iyadoo shuruuc ay jirtay oo baarlamaano ay soo sameeyeen oo ay soo ansixiyeen oo sharci ah, duruufta keentay in la baabi'iyo. taasaa in la isi su-aalo tahay oo su-aasheedu waxa weeyaan adigoo mahadsan doorasho qof iyo coda inay Soomaaliya ka dhacdo haatan inta uga dhiman ilaa goorma waxaa la magacaabay guddi doorasho, waxayna haystaan waqti ka yar 2 sano. xilligaas 2 sano ku eg ama ka yar Soomaaliya ma loogu diyaarin karaa doorasho ay dadka Soomaaliyeed codkooda ka dhiibtaan cidii ay doonaan ay doortaan? horta guddi doorasho lama magacaabin weli. sharcigii lagu dhisay guddiga doorashada hadda golaha wasiiradu ay ansixiyeen oo baarlamaanka loo wadaa. marka guddi doorasho weli lama magacaabin. waqtigay sii qaadanayna rabbi baa og inta ay noqonayso. laakiin dowladdu sida ay sheegtay in dhaqsiyo baarlamaanka la geeyo oo la isku soo raaco ama la isku diido mideed ay noqonaysaa. laakiin horaanba kuugu sheegay guddi cusub, sharci cusub, muxuu ahaa aqoontii oon la haynin hadda, waqtiguna uu yaryahay, xaaladaha jirana ay aad u qalafsan yihiin. doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto, waqtigaas kuma dhici karto. maanta doodihii socday oo arkaysana waxaa ka soo baxday oo mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu sheegayay inta 4.5 lagu jiro doorasho qof iyo cod ama ah, waana la micneeyay doorasho qof iyo cod waxa ay tahay. waa tahay waxaad ku soo celcelisay in guddi soo shaqaynayay muddo ka badan 7 sano iyo bar khibrad u lahaa arrimaha doorashooyinka la kala diray. imaatinkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee xilligiisa madaxtinimada Soomaaliya ee haatan ayaana arrintaa dhacday. muxuu madaxweynuhu qoonsaday oo guddiga uu ka dhaxarkay kala diristiis? wallaahi waxaan u maleynayaa horta asaga in la weydiiyo su-aashaasay madaxweynaha ay u taalaa in la weydiiyo. ma aha su-aal aan aniga hadda ka jawaabi karo. madaxweynaha guddi sharci ah, dastuurku wuxuu dhigaya muddo 6 sano ah inuu yahay teeramkooda. muddadii 6 sano ahayd markii ay soo dhammaatayna uusan guddiga doorasho qabanina baarlamaanka sharciga ahaa ee markaas jiray 6 sano kale ugu daray. marka su-aashaas waxay aad si sharci ahayd, su-aashaas waxay aadaysaa madaxweynaha. su-aashaas mid daba socod waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu meesha ka saaro guddiga aad adigu madaxda u ahayd ay sabab u ahayd wada shaqayn hoose oo idinkala dhaxaysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aadna kala shaqayseen muddo kordhinta ahayd ee 2 sano ahayd ee uu ku darsaday dowladdii Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo uu xukumayay. arrintaasna ay sabab u lahayd in madaxweyne xasan sheekh uu kala diro guddiga. eedaas maxaa ka jira? horta annaka markii nala aasaasay oo aan tartanka aan u galnay inaan xubnaha guddiga doorashada aan noqono, waxaa joogay dowladdii madaxweyne xasan sheekh aa joogay. 300 iyo dhowr muwaadin oo Soomaaliyeed ah soo codsadeen markii lagu soo dhigay joornaalada inay guddiga doorashada ka mid noqdaan. 300 iyo dhowrkaa tartankii la geliyey waxaa ka soo baxay guddigeenne intii aan ahayn. hordad saas ku yimid aan ahayn muddo 1 sano iyo bar ku dhowaadana 2 sano kusii dhowaanaysa waxaan isla joognay mudane madaxweyne xasan sheekh. madaxweyne xasan sheekh meeshii aan markaas ka joogno iyo wada shaqayntii aan la joogno mid ka duwan lama aanaan yeelanin. madaxweynihii cusbaa ee markaas yimid mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne qaran u ahaa. annagana guddi doorasho oo madax bannaana ahayn, howlahoodana u madax bannaan sidii markii horeba aan ugu madax bannaanayn. 2 sano annaga inaan kala shaqaynay meel lagu caddayn karo ma jirto, mana aanaan kala shaqaynin.
baarlamaanka sida dadku ay uga maqleen baarlamaanka oo dhahayo doorashada waxaa la qabanaya 2 sano gudahood aan dadka aan u maqalnay laakiin waxay ku habooneed anagu inaanaan shaqo ku lahayn waxaa cadeynaysa intana loo waco waxay ahayd in la weydiiyo doorashada halkee ku qaban kartiin sidii aan 27 Juun 2020 aan baarlamaanka u hortagnay aan u ka cadeyna doorasho waqtiga la qaban karo oon dhahnay waqtigii maadaama corona dhacay maadaama muxuu ahaay sharciga doorashada aadna loogala soo daahay doorashada waa dib dhacaynaa waxaan dib 2 nooc oo doorashaan qaban karnaa mid dadweynuhu maalintaas inay yimaadaan la rajisgareey ay codeeyaan taas waqtigii la cayimay waxaan dib uga dhacaynaa 3 bilood midna biometric haddaan dhahnana oo dadka la diiwaan geliyo oo la soo baaro oo la waxay doorashada lagu galo biometric-gaasna waxay qaadanaysaa oo dib u dhacaynaa 7 bilood markaas waqtiga ka dhinaa waqtiga doorashada la qaban lahaa waxaan isku darna waqtiga doorashada la qaban lahaa iyo waqtiga aan dib u dhacayno ma suura gelin inaan anagi baarlamaanka tagno markaan dambe oo niraahno doorashada waqtigaas lagu qabanaa haddii aan fursadaas helnayn oo mucaaradku ay fursadaasna siin lahaayeen baarlamaankuna uu nawici lahaa waxaan sheegi lahayn in muddo yar lagu qaban karo aysan ahayn 2 sano iyo wax u dhow iyo 1 sano inaysan ahayn maxaa yeelay waa diyaarsaneen waa tahay ma laga yaabaa Xaliim Ismaaciil ahaan in aad dib ugu noqoto hawlihii qaranka ee dhinaca doorashooyinka horta qof Soomaaliyan ay muwaadin Soomaaliyan ahay wadankayga wuxuu iiga baahdanaa waa diyaaran la waa qabanaa laakiin maanta xaaladda sida ay tahay iyo sida wax u socdaan lagama yaabo in aan qabto muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay hesho doorasho xor iyo xalaal oo ay dadku codeeyaan oo aan loo laabanin teendadii afisione mahamiyad intee la eg bay u leedahay shacabka Soomaaliya mahamiyad weyn u leedahay wax weyn ugu fadhidaa shacabka Soomaaliyeed inay kala tagaan ama in ciidan military oo wadanka qabsado waxa keena waxay ahayd doorasho qaldantay doorasho aad u qaldantay doorashadii loo dambeeyay oo liista unika loo bixiyay waxa waay liis ay hal xisbi iska yeesheen waxa loo bixiyay doorasho qasaartay waxa la sheegaa oo lagu soo celceliyaa laguna saadaaliyaa in dilkii madaxweynihii markaas inay doorashadii ay sabab u ahayd kadibna military mid kadibna dagaal yimid muhiimad weyn ay noo lahaan lahayd inaan aragno iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay u dareereen laakiin wax sahlan ma aha maanta xaaladda aan ku jirno waxyaabo badan ka horeeyo in la qabto doorasho cod iyo qofkii aan ka hadalnaa waxyaabihii ku heeraarsanaa oo loo baahnaa oo aniguna waay aragnimada ay ii siinayso adduunkana aan ku soo arkay meelaha doorashooyinka dhac waaba naga maqan yihiinba mana ka hadalno maxkamadihii kama hadalno nabad sidii amnigii kama hadalno doorashadii dadbaneedoo la qabtay waa aragnay amniga siduu ahaa iska dhaaf wax kale kuwii amniga loo dhiibay inay doorashadii qabtaan ayay ka xoogeen musharaxiintii oo ayagu is-sharaxeen oo qaateen doorashada meesha ilaalin lahaayeen ayaga doorashadii qaatay oo is soo sharaxay oo maanta muxuu xildhibaan baarlamaanka noo fadhiya muddadii aad ka maqnayd hawlaha doorashooyinka ee Soomaaliya oo aad guddigaasi madax u ahayd waxaad qayb ka noqotay guddi heer caalamiya oo korjoonteen ugu tagay dalal dhowr ah oo ay doorashooyinka dhaceen marka khibradaadii hore iyo intii haatan aad ka maqnayd arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya oo aad guddigaas caalamiga ka mid ahayd maxaad kaaga soo kordhay dalalkaas aad booqatay ama aad korjoogteenta u tagtay oo aad ku sii kordhin lahayd maanta haddii dib aad ugu noqoto shaqada doorashooyinka Soomaaliya horta khibradan oo aan ka helay dibadda ma ahan markii aan guddiga ka tagay waxay ka soo bilaabatay intaan guddiga ku jiray ka soo bilaabatay oo aan sameynay heer xataa waxaan gaaray inaan gudoomiye ka noqdo guddiyada doorashooyinka ee carabta adduunka aan ka gaaray
wax badan waa ii kordheen, wax badan waa arkay, wax badan waa ka faa'iidaystay. hadda oon guddiga ahaynaan weli aan ku dhex jiraa oo daraasooyinkaas aan wadaa oon ka qayb qaataa korjoogtooyinka doorashooyinka afrikaanka ah oon taga. wax weynaa kaaga ziyaadaa, maalin ilaahay keena waxbaad arkaysaa, waxbaa kaa ziyaaday. waxaa iga ziyaaday doorashadu inaysan ahayn mid markasta nabadda keenta, inaysan ahayn mid nabadda keenta. nabad daray keeni kartaa, nabaday keeni kartaa. waxay ku xirnaanaysaa dadka hogaamiyaasha ah ee ama markaas xukunka jooga ama mucaaradka ah siday ugu turaan wadanka ay uga wada heshiiyaan oo ay wax u wada qabtaan. ugu dambeyntii haddii lagu oran lahaa maanta tala sii guddiga lasoo magacaabi doono ee doorashooyinka Soomaaliya maxaad siin lahayd? والله talooyin badanaan siin lahaa laakiin midda ugu horeysa waxaa waaye ayagu inay ay midoobaan oo tafaraaruq ka dhexdhicin isuna dhiibin ama maamulka markaas haya ama xisbiga markaas tartamayo oo mucaarad ah inaysan u kala qaybsamin, laakiin ay noqdaan hal entity, hal guddi oo ummadda mas'uuliyaddeeda qaaday kana badbaadiya dhibaatadan Soomaaliya haysata. haddii lagu soo bandhigo inaad ka mid noqoto guddiga amaba aad hoggaankiisa noqoto ma aqbalaysa? guddi 18 qof ah haddii la ii soo bandhigay inaan ka qayb qaato ma aqbaleen. maxaa yeelay guddi 9 soo arkay inaan mid noqono inta ay nagu qaadatay, inta ay waqti nagu qaadatay. waxaan kaloo waayay aragnimo u leenahay guddiyadii hadda markii la sameynayay guddiyadii dadbanaa in aysan madax banaaneen ee dawladdu ay ku dhex jirtay. kii diida oo yiraahna waxaas waa qalad laga bixinay. waxaa lagu aasaasay 25 aan u maleynaa inay ahaayeen. maalintii loo xiraayay oo xafladda loo sameeyna 6 kaliya ka soo hartay. guddiga dad ka mid ahaa waxaa damceen oo isu sharxeen inay xildhibaan noqdaan asagoo guddi ahaa. heerkaasay gaarsiisneed. marka wax jihadaas saas u socda oo saas haddaan laga sixin waqtigeyga runtii kuma dhumiyeen. si kale oo ka qurxoon aan uga faa'iideyn karaa ummadeyda aanan guddi noqonin. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. taas waxay Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xilligii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudba. barnaamijka haldoorka bulshada ee Ohay Somali TV ayay marti noogu ahayd. Xaliimo waxay ka qayb qaadatay shirka sanadlaha ah ee Bulsho Trust ay soo abaabushay ee ka dhacay magaalada Columbus. anigoo Bashiir Taajir ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu ku kulmayno barnaamijka kan xiga. sidaas iyo nabadgelyo.